waxaa caawa dib loo dhigay xaflad la doonayay in lagu shaaciyo liiska golaha wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya taasoo qabanqaabadeeda saacadii la soo dhaafay ay ka socotay xarunta madaxtooyada. dib u dhigista xafladda shaacinta golaha wasiirrada ee xukuumadda federaalka ah ayaa timi saacado kadib markii uu soo dhammaaday kulan wakhti badan qaatay oo aqalka madaxtooyada ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa ahaa mid looga tashanayay shaacinta wasiirrada iyo xal u helidda kuraasta qaar oo weli dood adag ay ka taagan tahay, halka wararka qaarna ay sheegayaan in sababta dib u dhaca keentay ay tahay in aan la qasin xafladda dabaaldegga aasaaska maamulka Puntland oo caawa ka dhici doonto deegaanada maamulkaas. khilaafka ka taagan xilalka qaar ee golaha wasiirrada ayaa kordhay saacadii la soo dhaafay, waxaana kuwa ugu daran ka mid ah booska ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo in Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abuumansuur lagu soo daro xukuumadda Soomaaliya. xubnaha xisbiga UPD gudahooda ayaa isku khilaafay in ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya loo magacaabo Biixi Iimaan Cige oo aan ka tirsanayn xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD, iyo in laga dhigo Axmed Dhuge oo ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya isla markaana xubin ka ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay xisbiga UPD. Biixi Iimaan Cige oo 37 sano jir ah isla markaana kursigan loo rabo waxaa la sheegayaa in dastuurka uu diidayo in xilkaasi loo dhiibo maadaama da'diisa ka yarta 40 sano, laakiin waxaa ku doodaya in xilkaasi loo magacaabo xubno muhiim u ah xisbiga UPD. sidoo kale dood culus ayaa ka taagan in golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya lagu soo daro Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abuumansuur oo 3 sano ka badan maxbuus u ah dowladda Soomaaliya. Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay qabaan inuu ka soo dhex muuqdo xukuumadda cusub, halka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo siyaasiyiin kale ay ku doodayaan in arrintan laga baaqsado. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale la sheegay inuu xalliyey doodii ay qabeen xildhibaanada beesha murursade, waxaana jirta kuraas kale oo ilaa hadda khilaaf adag oo ka taagan yahay siday noo xaqiijiyeen siyaasiyiin ka agdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. liiska golaha wasiirrada ee la filayo in la shaaciyo waxaa la sheegayaa inay ugu badnaan doonaan xubno ka soo baxay xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ay noo sheegeen siyaasiyiin ka agdhow xarunta madaxtooyada qaranka. dadka la filayo inay qayb ka noqdaan golaha wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya isla markaana ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ee UPD ayaa gaaraya ugu yaraan 10 qof, waxayna taasi noqon doontaa tiradii ugu badneed oo xubno golo wasiirro ah oo ka yimaada hal xisbi, iyadoo ay xusid mudan tahay in hore sidaas oo kale ay xilal u heleen xubno lafdhabar u ah xisbigaas oo ugu horreeya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Maha Salaad, agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka xarunta madaxtooyada Soomaaliya. xogtan oo aan ka helnay mas'uuliyiin ka agdhow Villa Soomaaliya ayaa ah mid xooggan, inkastoo saacad kasta ay wax isbedeli karaan maadaama aan weli la qaadan go'aankii ugu dambeeyey ee liiska golaha wasiirrada. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada baarlamaanka dalka maalmaha la lahaa kulamo wada tashi ah si ay u yaraadaan mucaaradaha ka hor imaan kara xukuumadda cusub ee Soomaaliya, balse waxaa muuqda in iyadoo aan la magacaabin golihii wasiirrada ay weli xal u la'yihiin diidmo xoog leh oo ka taagan ama ka imaanaysa siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanadii uu la kulma u sheegay in badi golaha wasiirrada ay ka imaan doonaan xubnaha golaha shacabka, taasina ay sabab u tahay in uu rabo in xukuumaddiisa ay shaqayso isla markaana uu ka rabo codka kalsoonida ah baarlamaanka haddii la dhiso. maalinta berri ah ilaa habeen dambe ayaa la sheegay in ay gaari doonto ku dhawaaqista golaha wasiirrada siday noo xaqiijiyeen saraakiil sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya. guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u dhowraya in la shaaciyo xubnaha golaha wasiirrada oo saacadii la soo dhaafay aad loo hadalhayay in la shaacin doono caawa.